kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobadaydii haayana waxaa kamid ah Man City ayaa sheegtay xidiga Inter Kevin Sefi Zuma ayaa qarka u saaran inuu ka tago Chelsea Ribery ayaa xanaaq kala dul dhacay Fiorentina Arsenal ayaa wajihi doonta dagaalka loogu jiro Onana Tuchel wuxuu doonayaa heshiiska Haaland xagaagan Tottenham iyo Real Madrid ayaa doonayaan Conte intaasi waxa ay qodobadii warka hatana ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan Man City ayaa sheegtay xidiga Inter Kevin kooxda Inter Milan ayaa ku garaacday kooxda Man City saxiixa daayarka reer Ireland ee Kevin Sefi sida laga soo xigtay Football 16 jirka ayaa ogolaaday heshiis 3 sano ah oo kula sii joogay kooxda ka dhisan horyaalka Talyaaniga balse kooxaha Manchester United iyo PSV Eindhoven ayaa hore loola xiriirinayay inay u dhaqaaqayaan daayarka tayada badan ee Kevin Sefi xilli ciyaareedkan Ribery ayaa xanaaq kala dul dhacay Fiorentina Frank Ribery ayaa sheegay inuu dareemay ixtiraam la'aan Fiorentina kadib markii uu ka tagay kooxda horaantii xagaagan Ribery ayaa ka tagay kadib markii uu dhacay qandaraaskiisa 2 sano laakiin wuxuu ku faraxsan yahay inuu sii joogo ugu yaraan xilli ciyaareed kale si kastaba ha noqotee wax wada hadal ah ayuu ku waayay maamulaha kooxda Fiorentina waxay ahayd mid adag 2 sano gudahood wax walba waan siiyay kooxda maxaa yeelay tan iyo waa maskaxdayda Arsenal ayaa wajihi doonta dagaalka loogu jiro Onana qodobkaasi waxa eegaysa Qamar Maxamed Cumar Arsenal ayaa wali isha ku haysa ciyaaryahanka kooxda Ajax ee Ander Onana laakiin waxay ka baqayaan in goolhayaan uu door bidayo u dhaqaaqista kooxda ka dhisan horyaalka Faransiiska ee Lyon sida ay qortay Football Gunners ayaa doonaysa inay la soo wareegto goolhayaha cusub xilli ciyaareedkan waxaana ay bartilmaameedkooda koowaad ka dhigatay Onana si kastaba ha noqotee kooxda Lyon ayaa dhankeeda ku jirta loolanka lagu baadigoobayo goolhayaha Ander Onana maamulaha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ma awoodo in uu ka haro xidiga reer Cameroon waqtigan Tuchel wuxuu doonayaa heshiiska Haaland xagaagan warbixintaasi waxa eegay Cabdirasaaq Cabdi Ibrahim Thomas Tuchel ayaa doonaya in Chelsea ay si dhaqso ah ugu dhaqaaqdo saxiixa weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland sida ay qortay Mark tababaraha reer Jarmal wuxuu doonayaa inuu ganacsiga xidigan lagu dhaqsado xilli ciyaareedkani inta aysan weerar soo bilaabin kooxaha kale ee dhawaanahani dalabkiisa ku raad joogay Haaland ayaa hadda u muuqanaya inuu ka faaruqi karo kooxdiisa Borussia Dortmund Tottenham iyo Real Madrid ayaa doonayaan Conte warbixintaasi waxa eegaya Xasan Cumar Xuseen kooxda Tottenham ayaa qarka u saaran inay la kulanto Real Madrid tartanka loogu jiro saxiixa difaaca kooxda Sevilla ee Jules Koundé Las Blancos ayaa doonaysa inay xajiso difaaceeda kadib bixitaanka Sergio Ramos isla markaana la filayo inuu ka tago kooxda Rafael Varane Real Madrid ayaa ka cabsi qabta in ay ka adkaato Tottenham oo diyaar u ah inay bixiso adduun dhan 60 milyan oo geni si ay u hesho 22 jirka walow lacag aysan waqtigan bixin karin Real Madrid Guardiola ayaa si toos ula xiriiray Griezmann tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa wada hadal la yeeshay weeraryahanka Barcelona Antoine Griezmann xilligan ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka Faransiiska ayaa wajahan inay la iibiyo xagaagan iyadoo Barca ay u dagaalamayso inay hesho lacag fara badan si ay u maareeyaan qandaraas cusub ee Lionel Messi Food Mercato ayaa sheegaysa in Manchester City ay isha ku hayso inay raadiso bedelka Sergio Aguero kaasoo dhawaan ku biiray kooxda Barcelona waxaa la ogaaday in Guardiola uu dhawaan si toos ah qadka telefoonka uga wacay Griezmann nin ayaa ku raaxaysanaya xiriir wanaagsan Guardiola ayaana diiwaan gelisay xiisaha Manchester City ee Antoine Griezmann ahmiyadda ugu sarreysa ee Manchester City ayaa wali ah weeraryahanka Tottenham ee Harry Kane laakiin haddii heshiis uusan dhicin wuxuu u jeesan doonaa Antoine Griezmann Man United ayaa qorsheynaynin inay dalab ka gudbiso Kane warbixintaasi waxa eegaya Cabdirasaaq Cabdi Ibrahim Manchester United ayaa doonayeen in ay heshiiska isku bedelashada ah ku qamaari karin saxiixa Harry Kane sida ay qortay Express Sports waxaa jira talo soo jeedin ku saabsan in Manchester United ay raadin doonto inay ku darto ciyaartoy ay horay ugu qorsheynaysay inay ku xoojiyaan bedelka xidigani Harry Kane ayaa doonaya inuu ka hawo bedesho waqooyiga London haddii la helo dalab ku haboon xidigani inta aan ku soo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV iyo anigoo Munic Ismaan waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo